habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London. Qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyna gabagabada shirka dhuxusha ee Muqdisho ka socday ayaa maanta laga soo saaray talooyin ay ka mid yihiin in la helo wixii dhuxusha lagu bedeli lahaa. madaxweynaha Iiraan ayaa ku adkaysanaya inuu sii baadigoobi doono xiriir wacan oo caalamka la yeesho. Donald Trumpna saacad gudaheed wuxuu ku dhawaaqi doonaa haddii uu ka baxayo heshiiska nuclear-ka ee Tehran. waa dumar ka hortagaya ugaarsiga sharci darrada ah. waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan haweenka Zimbabwe ee u diyaar garoobaya sidii ay u ilaalin lahaayeen duurjoogta. waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho halkaasi oo maanta lagu soo gabagabeeyay shir 2 maalmood socday oo laga arrinsanayay xal u helista dhibaatada dhuxusha. waxaana si loo hakiyo baaxadda dhibaatada dhuxusha laga soo saaray shirka talooyin ay ka mid yihiin in wacyigelin bulsho la sameeyo iyo sidoo kale in la beero geedo. waxaa kaloo la soo saaray in la dhaqangeliyo qaraarkii qaramada midoobay ee lagu mamnuucayay in dhuxul laga dhoofiyo Soomaaliya. wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad ayaa goor dhaweyd iga waramay waxyaabaha ka soo baxay shirka. farxan talooyinka ugu waaweyn ee shirka ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in bedel degdeg ah loo helo waxyaabaha iminka loo isticmaalo dhuxusha. arrinka labaad oo khubaradu ay soo jeediyeen waxa uu ahaa sidan ka warqabno dad fara badan oo Soomaali ah ayaa quutulyoomkooda ka raadsada dhuxusha haddii ay noqon lahayd ka shaqaynteeda, jarista geedaha iyo haddii ay noqon lahayd ka ganacsi ahaanba dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada. waxaa la soo jeediyey in dadka loo helo bedel kale oo ay ka shaqaystaan. talooyinkan soo baxay marka la eego dadka xeeldheerayaasha ah ee ka qayb galay shirka iyo xoogga badan ee beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliyaba ay arrinkan gelinayaan, waxaa loo arkaa in ay yihiin kuwa noqon kara kuwa dhaxalgal ah, balse su-aasha ugu weyn ayaa waxa ay ka taagan tahay dhaqangalkooda. haddaba talooyinkaasi soo baxay ee uu sheegayo sidee looga dhabayn karaa. su-aashaasi waxaan hordhigay Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir xagga deegaanka oo shirka ka qayb galay. shirkani wuxuu ahaa shir runtii ahaa midkii ugu horreeyay ee la qabto. saameynta ugu weyn uu keenayana waxay tahay in caalamka iyo Soomaalidu ay ogaato in Soomaalidu ay ka fikirayso dhirtaasi la jaraayo iyo dhuxusha wadanka laga dhoofinayo. wuxuuna markaasi keenayaa in marka ay wacyigaasi la kordhiyo isla markaana dadku ay ogaadaan waxyaabaha laga hadlayo inay tahay dhuxusha oo dadka Soomaaliyeed ay la socdaan. taasi waxay keeni kartaa in dhuxushii dhoofinteedii iyo jaritaanka geeduhuba ay markaasi noqoto mid intii hore ka yaraata. dhuxusha dalka Soomaaliya laga dhoofiyo waa qaybta ugu weyn ee dhirta Soomaaliya laga jaraa laga sameeyo, waana midda dhibaatada ugu weyn u geysanaysa xaalufinta iyo nabaad guurka dalka Soomaaliyeed. waxaa la soo saaray aragti iyo talo ah in mar dambe aan dalka Soomaaliya dhuxul laga dhoofinin. sida kaliya ee looga hortagi karana waxay tahay in markaasi meelaha dhuxulahaasi ay ka baxaan oo dekadaha laga qaado, control xoogan lagu sameeyo. Dr. Cabdulaahi Maxamed Cilmi faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogayaga BBC News Somali adiga oo ka geli kara mobilkaaga. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in Tehran ay doonayso in xal waafi ah ay la gaarto dunida xitaa haddii madaxweyne Trump saacadda nagu soo beegan uu go'aansado inuu ka baxo heshiiska nuclear-ka ee Iiraan. in yar ka hor intaanu hadlinna qiimaha sarifka lacagta Iiraan ayaa hoos uga dhacday dollarka, halka qiimaha saliiduna ay kor u kacday maadaama laga cabsi qabo in dhoofinta saliidda Iiraan ay go'daba haddii Washington ay dib u soo celiso cunaqabatayntii Iiraan saarnayd. Maxamed Xaraare ayaa ka waramaya. heshiiskii nuclear-ka Iiraan ma yahay mid sii jiraya. heshiiskan ayaa yimid kadib sannado badan oo Iiraan lagu eedeynayay inay dadaal ugu jirto sidii ay u samaysan lahayd hub nuclear ah, taa oo ay Iiraan marar badan dafirtay. waxba lama dhagaysanee 10 sano oo cunaqabatayn ah ayay qaramada midoobay dul dhigtay. heshiisku wuxuu kulmiyey 5 ka mid ah xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka iyo midowga Yurub. waxaa loogu yeeray tillaabo hufan oo si wada jir ah loo qaaday.
haddaba muxuu ku saabsanaa iiraan ayaa oggolaatay inay baabi'iso qaybo badan oo ka mid ah barnaamijkeeda nukliyeerka islamarkaana oggolaato in kormeerayaal caalami ahi kormeeraan inta hartay waxaa lagu heshiiyey in iiraan ka tanaasusho taygelinta yuraniyam fara badan kana takhallusta kumanaan sannadood oo agab iyo mashiinno ah taa oo ay khubarradu rumaysan yihiin in iiraan ay wakhti dheer ku qaadan doonto inay qorshaheeda sii wadato mustaqbalka taa oo bulshada caalamka siinaysa awood falcelineed haddii loo baahdo intaa beddelkeeda beesha caalamku waxa ay ku heshiisay in iiraan laga qaado cunaqabataynta halka iiraan waxa ay dib ula soo baxaysaa balaayiin lacag ah oo ka xanibnayd saliid badanna way dhoofin karaysaa ganacsi caalami ahna waa uu u furmayaa gorgortankan waa mid ay iiraan ilaalinayso weli ha yeeshee marar badan ayaa la dhaliilay heshiiskan israa'iil iyo sacuudi carabiya waxa ay sheegeen inuu ahaa mid jilicsan ra'iisul wasaaraha israa'iil netanyahu ayaa isaguna sheegay inaan iiraan lagu kalsoonaan karin madaxweyne trumpna wuxuu sheegay inuu ahaa heshiiskii ugu xumaa caalamka heshiiska iiraan wuxuu ahaa kii ugu xumaa oo dhinac u janjeeray ee la soo saaray weligeed abidkeed wuxuu ku hanjabay inuu ka bixi doono haddii aanan la sixin kala dhinnaanta ku jirta haddaba waa maxay kala dhinnaanta laga dheehan karo oo sixista u baahan dhan haddii laga eego qodobo badan oo ku jira heshiiska waxa ay dhacayaan muddo 10, 15 ama 25 sano ku eg dadka qaar qodobadani waa u xasaasi sidoo kale heshiiska laguma soo hadal qaadin qorshaha gantaalada riddada dheer ee iiraan iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee daandaansiga lagu tilmaamay lama sii saadaalin karo waxa uu Trump qalbiga ku hayo haddiise uu ka dhabeeyo ereyadiisii hore dalalka kale hore u saxiixay ayay noqonaysaa in heshiisku halkiisii sii ahaado oo ay Trump ku gacan saaraan inay Iiraan ku cadaadiyaan inay aqbasho heshiis leh qodobo cusub laba gooraba Iiraan dhankeeda waa ay u furan tahay inay iyaduna heshiiska iska laasho bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee maanta dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu booqanayo Beijing markii labaad si uu la kulmo madaxweyne Xi Jinping safarkan ayaa daba socda kulankii taariikhiga ahaa ee Kim uu la yeeshay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed sidoo kalena waxa uu ku soo beegmayaa xilli la qorsheynayo in Kim uu la kulmo Trump oo si weyn uga wada hadli doonaan barnaamijka nuclear-ka ee Kuuriyada Waqooyi wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa boqosho 2 maalmood ku jooga magaalada Helsinki ee wadanka Finland waxa uu la kulmayaa dhigiisa Finland Kari Mukkonen waxaana ay ka wada hadlayaan baliri arrimo ay ka mid yihiin dadka dib ugu noqonaya Soomaaliya iyo waliba xaaladda amniga madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa u tagaya Britain baaritaan caafimaad sanadkii hore madaxweynuhu waxa uu 100 maalmood in ka badan ku qaatay wadankan Britain caafimaad awgii waxaana socdaalkan uu noqonayaa kiisii afraad tan iyo markii uu talada qabtay 2015 xanuunka haya madaxweynahaas weli lama shaacin Sacuudiga ayaa 24 Juun qaadayo xanibaadda saaran haweenka ama dumarka doonaya inay gawaarida kaxeeyaan go'aankan oo sanadkii hore la shaaciyay ayaa ka mid ahaa qorshooyinka waaweyn ee isbedel ee uu wado amiirka dhaxalka sugaya Maxamed bin Salman iskuulo lagu barto kaxaynta baabuurta ayaa loo furay haweenka magaalooyin badan oo Sacuudiga ah waa dalka sheegta in uu leeyahay duurjoogta ugu quruxda badan qaaradda Afrika laakiin tirada xayawaanka Zimbabwe iyo laanta ilaalada u ahba hoos ayay u dhacday kadib markii eedo la xiriira musuqmaasuq iyo dhaqaale xumo ay soo baxeen hadda koox dumar ayaa rajaynaysa in waxaasi oo dhan ay bedelaan si ay uga hortagaan ugaarsiga sharci darrada ah kooxdan waxay isugu yeeraan geesiyaashii Axmed Xaaji Aadan ayaa faahfaahinaya muddo 10 sano ah tani waxay ahayd shaqada ragga waa socod dheer oo kormeer ah iyo dabagalka ugaaratada sharci darrada ah iyo in dhimasho loo diyaar garoobo waa shaqo halis ah markii qaybtan lagaga hortago ugaarsiga sharci darrada ah la sameeyay 9 bilood ka hor dad badan shaki ayay ka qabeen waxay moodayeen in aynan samayn karin waxay noo arkeen kuwa guuldaraystay balse way qaldan yihiin goobtan waxaa mar ku badnaa ugaaratada maamul xumo iyo ugaarsi waxa ay yareeyeen tirada xayawaanada dumarka waxa ay ka shaqaynayaan sidii loo soo celin lahaa laakiin ilaalinta 100 mayl oo isku wareeg ah waa arinta ugu weyn ee su'aashu ay ka taagan tahay mashruucan gaarka ah waxaa maamulayo askari hore uga tirsanaa ciidamada sida gaarka ah u tababaran
dumarkan badankoodu ma niyad jabaan ma quustaan waxaana gaarnaa ilaa meel aan si wax ku ool ah ugu sheegno midkoodna si iskeed ah kuma tegin xalka muddada dheer waxaa ka mid ah ku guulaysashada quluubta sida ugu wanaagsan waa in dumarka loo maro caawa waxaa la tijaabinayaa tababarkooda kadib digniin la siiyey waxa ay guriguri u galayaan tuulo waa howlgal weyn waxayna soo qabteen qof la raadinayey oo ugaarsi sameeyey ninkaas oo 9 sano lagu xukumay kadib markii uu sumeeyey maroodi dal aysan laanta ilaalinta duurjoogta kaalmo dhaqaale ka helin dowladdiisa wax badan ayuu u baahan yahay mashruucan waxa uu yahay in dumar badan laga howlgeliyo dalka oo dhan waxayna noqonaysaa fikrad sii xoogaysataa haddii dumarka mas-uul looga dhigo ilaalinta duurjoogta zimbabwe waa in dib u habeen lagu sameeyo qaybtan ay ragaadiyeen fadeexadda iyo musuqmaasuqa tanina waxay noqon kartaa bilow cusub oo dalka oo dhan uu u baahan yahay xagga ciyaarahana ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda Arsenal Lauren Kashonli ayaa 6 bilood ciyaaraha ka maqnaan doona kadib markii qalliin looga sameeyay cagta laacibkan u dhashay Francisco oo 32 jir ah ayaa ku dhaawacmay ciyaartii Arsenal iyo Atletico Madrid ee Khamiistii tababaraha xulka qaranka ee Francisca Didier Deschamps ayaa shaaciyay in laacibka uusan ka qayb gali doonin tartanka koobka adduunka dad farshaxanka yaqaana iyo kuwa ururiya farshaxanka oo dunida ka kala yimid ayaa ku sugan waddanka Senegal si ay uga qayb qaataan bandhig faneed soconaya bil oo loo yaqaan Dark Art waxaana ka soo qaybgalayaasha ka mid ah wariyaha BBC-da Leila Adjofi oo farshaxankeeda ku guuleystay abaalmarinta Leopold Senghor bandhigan oo 2 sano mar la qabto ayaa waxa uu muujinayaa muuqaalo farshaxan oo ay sameeyeen dadka Afrika ee farshaxanka yaqaan Aisha Afrax ayaa faahfaahinaysa bandhig faneedkan ayaa lagu qabanayaa meelo aan hore loogu qaban jirin sidii suuqii weynaa ee dalka Mali bandhigu wuxuu ka dhici doonaa 300 oo goobood maadaama aan geeda qore ahay walxaha aan u baahanahay inta badan waxaan ka helaa Afrika waa inaan halkan joogaa bandhigan macnihiisu waa inaadan meelo kale u safrin si aad sare ugu qaado xirfadaada kal hore waxaan aadi jirnay carwooyin kale hadda iyagaa noo yimaada carwooyinkan ayaa lagu gelayaa si bilaash ah dhismaha maxkamadan howlgabka ah ee sharciyo badan lagu fulin jiray waageedii hore ayaa hadda farshaxan yaqaanadani ay su'aalo kale isku weydaarsanayaan waa muuqaalo ka turjumaya qaaradda Afrika dhibaatooyinka ay soo wajahday si ay horumar u gaarto waxaan dooranay inaan muuqaalkan u soo bandhigno si labis oo kale ah si aan u niraahno dhaqankan casriga ah nama anfacayo labaatan iyo labada sane ee uu jiray bandhig faneedka magaalada Dakar waxa uu u suurageliyay in farshaxanka Afrika uu dunida kale sida carwooyinka New York iyo London uu gaaro dadka reer Yurub iyo Ameerika ee ururiya farshaxanka ayaa lacag badan ku bixiya bandhigyadan oo kale halka dadka Afrikaanka ahi ee gadanaya farshaxanka ay tiradoodu kooban tahay waxaan u baahannahay dawladda iyo qaybaha ganacsiyada gaarka loo leeyahay waxaan u baahannahay inay fahmaan inay muhiim tahay in la furo bandhig faneedyada bandhigan ka dhacaya magaalada Dakar waxa uu sii socon doonaa taniyo bisha Juun 2 ugu dambeyntiina haddii aad tahay dadka la socda ciyaaraha mootooyinka waxaad og tahay inay jiraan noocyo kala duwan sida tartamada Formula 1, IndyCar, Rally iyo GT Series iyo kuwo kale laakiin koox waxyaabaha halista ah sameeya oo ku nool koonfurta Britain ayaa go'aansaday in ay ku ciyaaraan qaab ka duwan oo ah tartan mashiinada beeraha lagu jaro waxaana jira 4 nooc oo baabuurtan oo kaga qayb galayeen oo kuraas lagu dhajiyay kastoo birihii wax gooynayay laga saaray sabab xagga ammaanka ah inta ayaan kusoo gabagabaynana barnaamijkeeni caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale habeen dambe kulmayno dhammaantiinba nabadgelyo